السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن ميل كستو aad joogtaan halka aad naga dhageysanaysaan ama aad nagala socotaan waa madasha 60 oo had iyo jeer lagu falanqeeyo arrimaha Soomaaliya haddaba waxaa khadka si toosa ugu jira General Ahmed Saciid oo ku magac dheer Gagaroor oo jooga magaala madaxda gobolka Sanaag ee Eergaabo marka hore kusoo dhawaad General madasha 60 aad baad mahadsan tahay waa in salaamaya marka uu raysay Yaasiin Ducaale ياسد سعودي وبرنامج المدرسة 60 ويسا حريريي حرير كذا لها عن كل سلامة يا دمان بالسياسة المغربية مدرسة مارتي كل حرام وحن كعود بدارنا يا حوجا إن مارتي حبيب يشوفتوا وقبوا قالوا يرجع بيحضر كذا مركز لكن إن شاء الله وديانا يا أدنى من سلامة يا سؤال الدول ويا هنقولنا عادي هذا يعني كوجم مهد علينا وقت غالقة والنهرتي إنسان لسعنو إن جنرال سوماليلاند جبي أهان وحكسعتها دورشين كي عمرك على قد دورنا يو مدحوينها إن مستقبل كا إن سوماليلاند حكومي دونا إن حالة دي حاجة مريسا إن دورشين إذا رجعتي ياسين وحوي وحاسبان لك كسعتي لا تدح تولك بيشا وكبعضي كده تولك بيشا دورشين مدحوينها اللي مدحوينك خلينا كشنت سنة صوصة dalka hogaaminaha marka meel fiican bay maraysaa waxaa lagu jiray 14 iyo 15 maanta markii horeysay goobaha in lagu soo tiriyay degmooyinkii loo soo gudbiyay oo degmooyinku ay maaragtay tirinayaan kormeerayaasha iyo goobjoogayaashu ay isla ansixinayaan codadka isla saxeexayaan aawa waxay kusoo hoydeen gobolada gobol walba in salaadiiqdi maaragtay riboodkeedii uu yimi degmooyin la soo gudbisay ilaa berito waxaa lagu jirayaa in degmooyinku ay maaragtay iyaguna hubiyaan oo muraaqibiintii iyo goobjoogayaashii iyo commissionkii joogay ay isla saxeexaan markaa kadibna xarunta weyn ee maaragtay serverka loo gudbiyey caasimada magaala madaxda Hargeysa sida la saadaalinayo ama commissionka aan ka helayna 17 bisha oo sabtida ku beegan ay noqon doonto shaacintii natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka Somaliland waayahay General sidaan ogsoonahay ka waran nabadda iyo sida ay ku dhacday wax dhibaato miyay ka dhacday meelihii goobihii laga codeynayay dadku codeynayay yaasiinow waxa weeye wax qaba yaraatee quwwata ama dhibaato oo ka dhacay dhammaan Somaliland riboodka amniga aan helayno waxa weeye ma jirto yacni gobolada oo dhan waxa soo ribood garayeen si nabadgelyo ay doorashada uga dhacday oo aad u hufan oo runtii degan waxaana arrintaas sii sahashay waxay ahayd doorasho nidaamsan oo maaragtay commissionku qaabka doorashada iyo kaadadhka iyo qof waliba maaragtay wixiisa u dhiibanayo ay ahayd qaab aan saxmad lahayn marka dhammaan waxay kusoo hoyatay oo ku dhacday doorashadaasi nabadgelyo waayahay sida aan ogsoonay waxaa joogtaa magaala madaxda gobolka Sanaag ee Eergaabo gobolka Sanaag xagee ka dhacday magaalooyinkee ka dhacday gobolka Sanaag waxay ka dhacday marka degmooyinka la yiraahdo 4 degmo Eergaabo Garadag Ceelaf Weyn maxaan ku dhahdaa Baran intaaba way ka dhacday doorashada si isku mid uga qabsantay General sida aan ogsoonahay oo nalaga soo warinayo meelaha ka tirsan Baran degmada Baran oo kale wasi la sheegayo hadaftamo kama dhicin xingalool aad laftigaagu adigu aad ka timi kama dhicin oo karaka ayaa laga jeexjeexay ayaa socotay arrinta maxaa war naga siin kartaa walaal waxa weeye horta dee wuxuu wax beentu inta meeriyo waad iska garanaysaa warkaan kuu sheegaya xaqiiq weeye waa la shaacin doonaayo inta cod ay kala heshay baan hadeer kuu sheegi karaa meel walba ka codaysay xisbiga ku guulaystay oo ay u codeeyeen baan kuu sheegi karaa gobolka Baran waxa weeye xingalool bay ka dhacday ceelbow bay ka dhacday hadaafti bay ka dhacday dib bay ka dhacday dibaayay ka dhacday armalay ka dhacday walla xagaray ka dhacday wardheer bay ka dhacday intaasoo goobood dabardalool bay ka dhacday intaasoo gooboodba si isku mid ah oo nabadgelyo ah oo wax kastoo ka jira aanajin baa looga codeeyey propagandada iyo warxmatashiilka dee waxa fiican qofku waxaa berri iskaga soo noqon doona inuu maaragtay dee marka horeba iska sii qirobaa wanaagsan waa kuu sheegayaa weliba waxaan kuusii sheegayaa wadani baa ku horeeya
oo hogaaminaya gobolka baran codadkiisa waxaana kuu sheegaya dee nimankii meesha marmarayay oo ninkii fanaanka ahaa iyo waxa weeye kaadhadh dadweyne kaadhadhka la siiyey niman gel jira oo ay 8 kaadh ka iibsadeen waa la sheegaya meelaha taagtaagayaan laakiin xataa daqiiqado inaana meel la ku sugnayn imanna dadkii codeeyey baa maaragtay dee dhulka jooga wax la qarin karo maaha markaa su-aasha ay weydiinaysa idinka laftiina markaa su-aasha ay weydiinaysaa waxaan rabaa inaad ogtihiin in laga codeeyey sanaadiiqdoodiina cergaabay hadda taallaa kusoo weetay laakiin generaal waxaa la socday wasiirka amniga oo aada isku beel kasoo jeedaan oo marayay baran marayay oo puntland kasoo jeeda waxaa marayay guddoomiyaha hadda adigu ku sheegtay fanaanka waxaa maraysay gabar wasiir ku-xigeena waxay tageen goobahaas marka waxay tuseen oo dadka tvga laga soo deynayay iyaga oo dadkii ay ku hareereysan yihiin ay kaadhadhkiina gacanta ku sidaan oo leeyihiin dadkaa noo keenay waana ka gubnay arrintaas waxaad leedahay meel kale isku soo sawireen oo xingalo iskuma soo sawirin miya maya kuma odhanayo anigu horta wax beena ku hadli maayo propaganda iyo ishaacaadna ma fidinayo nimankaa waad ogtihiin oo barna way yimaadeen oo umay soo gudbin hadaaftimo inta aad sheegtay meesha waa maraysay nimankaasi maalinta ay arkaan somaliland oo dhulka simi ama wax ka qabanaysa ama doorasho ka samaynaysa ama mashruuc wadda ayuunbaa la arkaayoo la maqlaa ama xildhibaanadooda ama wasiiradooda niman saamayn iyo rabitaan midna uu dadku hayo maaha ingalool intay buraan tageen oo weliba shil ku galeen oo dad shacaba ku dhaawaceen oo dadweynuhu ku kacay waad ogtihiin ayay si dhuumashaa xingalool koonaheeda meel ah oo iskuulo arday dhigato intay yimaadeen oo hoos ula soo hadleen isudfaac ciidankeeduna uu dul joogay ayay yimaadeen dhowr qof oo dee iyagu ay la ballameen bini aadamku dee cid nooma xidhxidhna ayay kaadh ka iibsadeen waad aragtay 8 kaadh ay hadba dhinac u rogayaan bay hayaan waxaan ku leeyahay nusu saac maynan joogin markay ogaadeen ciidanku soo daruuqaansadayna waa ay carareen oo dhahar bay galeen marka waxaas wax saamayn ku yeeshay waxaan kuu sheegayaa oo xaqiiqa nimankaasi iskuulka koonaha ah bay dee ogteen oo dhowr dumar iyo xoogaa kusii diyaariyeen laakiin goobihii doorashadu ka socotay iyo magaalada midna ma dareemin sideedii bayna uga dhacday doorashadu waxa weeye ma sidooda dee propaganda beena ma sheegayo nimankaasi sidaa gaadmada ah meesha waa ku yimaadeen waana kaga carar isku sawirkaa bayna uga dan lahayen saamayn kale lahayna ma jirto waayahay generaal adigu 3 gobol ayaad isku haysataa oo togdheer iyo laascaanood iyo ceergaabo hadda maxaa adigu ceergaabo u joogtaa ma kalalaala iyo waxbaa laga baqaya kas baa laga baqaya maxaa adigu meesha ku keenay ceergaabo ima timid wal sida aad ogtahay gobolkana gobol aada usoo fog weeye waana gobol la odhan karo ama bad ama 10% buu ka yahay somaliland gobol baaxad weyn weeye soomaaliyadii horena gobolka labaad ugu weyn buu ahaa somalilandna 3 meelood oo meel baxda ugu dheeriya 40 baa gobolka sanaaga markaa sida la qorsheeyo xilligan oo kale saraakiil badan oo jenaraallo iyo hogaamamo ah ayaa gobolada loo kala diraa oo halkaas commandka guud isku haya marka anigu waxaan u xil saaraa meesha gobolada kalena janamaad joogay aniguna gobolka sanaag inaan si gaara maadaama baaxad weyn yahay aan si gaara u fadhiisto oo halkaas hawlaha nabadgelyada iyo socodka doorashooyinka aan kala socdo ayaa shaqadaydu ahayd saasaana lagu soo diray waana muddadaanun baan joogayaa marka hadda codbixinta lagu dhawaaqo waa noqonaya insha allah waayahay sida ay dadku isla meelaha kan laga sheegayo waxa laleeyahay kulmiye ayaa helay doorashadii inkastoo aad sheegtay oo koley lagu dhawaaqi doono maxaad nooga sheegi kartaa dadkan ku dhegaysanayo iyagu laftigoodu rabaa bal inay ogaadaan qofka doorashadu ku guuleysanaya yaad generaal u malaynaysaa inuu helayo sida ay dadku isla marayana waxa laleeyahay wadani baa helaya marka yaad isleedahay baa helaya doorashada su-aal fiican weeye marka ugu horeysa waxaan sheegayaa xilligan hadda wada hadlayno doorashada xaqiiqda oo lagu dhawaaqay lama hayo wixii la sheegaaba waa kutirikuteen iyo saadaalin iyo xogo un la helayo ma garata laakiin waxa xogta rasmiga la heli doonaa marka commissionku si rasmiga ugu dhawaaqo hadda waxa la hayaa waxa weeye dusmooyinka hadallada dusiska ama xogaha dusmada ah ee laga helayo goobaha iyo reserfarada laga helayo waana la yaqaan goboladoo dhan de waa xidhiidh baan la leenahay waxaan kuu sheegayaa gobolka sanaag codadkiisa waa istifaaceen labada xisbi wax yar oo aan ilaa 1,000 iyo waxa unbaa maaragtay wadani ku horeeya awdal waa istifaaceen iyagana sidaas si la-eg waxaan ku dhamayn ama lama dhamayn
ayay maaragtay ku horeeyaan waddani. meesha la yidhaha togdheer waa la isdifaacay. 3 gobol waa iskoosteen baan guud ahaan qiimeynta kugu oran karaa. meesha la yidhaha sool marka saraar oo caynamaha lagu daro yani kulmiya si weyn ugu horeeya tubareeye kun haddaanay ka badnayn. gobolka la yidhaahdo maroodi jeex ama loo yaqaano waqooyi galbeed marka gabiiley iyo hargeysa la isku daro aqlabiyad saaxiqa maaragtay ayaa ka jirta oo kulmiya ku horeeyo. saaxil oo berberaha sidaas oo kale kulmiya aada ugu horeeya. marka warku wa iska annaga dee kulli meeshan aan joogno warkayga waa kaleer waa la ogyahay saadaashu sida ay badan tahay laakiin muhiimadda waxa weeye si rasmiya looguma dhawaaqin sida loo kala maaragtay codbadanya. laakiin sida hadda u socoto waxa weeyaan waxay ku socotaa inuu waddani ama kulmiya helayo miya? saasaan hadda anagu ku haynaa sida anagu xogta ku hayno kulmiya horeeya in badan. marka ma umalanaysaa in uu kulmiya waddani laftigeeda waxay haystaan dad aada u fara badan ayaa iyagu soo baxayay meelo badan ka soo baxayay. dadku markay arkaan tviyada la daawado waxa la arkayay waddani oo aada loogu soo baxayo marka loo dhigo kulmiye. dadkaasi makaalin baanay haysan mise dadku maba taageersaneen way iska soo baxayeen sidee wax u dhaceen? walaal waa su-aal fiican waa sax. sideedaba waa taqaanaa dhaqanka soomaalida maalinba wixii shidan bay la faan qaadaan oo ololaha siday u muuqday waxa weye dadkii taageerka haystayna inaan naga badnayn baa suuragal dadka ololaha taageersanaa ololaha usoo baxayay ama dad qaab dhaqaale lagu xisbiga doonida ha ahaado ama dhaqaale lagu keenay ama adaab lagu keenay ama maxaan ku idhahdaa iyay ahaayeen oo la odhan ma ahayn dadkii kaadarka way wada haystay dadkii ololeynayay maaha. waxaan kale kuu sheegayaa dadkii kaadarka qaatay dad badan oo kamid ihi inaanay codaynin. degmada ceerigaabo 50 ayaa maaragtay kaadarka qaatay waxa codeeyena waa 32,000 hadeer. gobolada oo dhanna saasay uga dhacday. gobolka baran 4,600 bay ahayd 1,500 iyo xoogaada ka codeeyey. gobolada kale oo dhan waxaway wax bir ku dhowaa gobol walba marka awdal iyo laga tago maroodi jeex. laakiin sool waa saasaa dhacday, togdheer saasaa dhacday, sanaag saasaa dhacday. marka codadkii kaadarka qaatay oo dhami ma codayn sababa jira darteed. dadka oo reer miyi ahaayoo nimankii ay ka codayen aan joogin. dadka oo duruufa iskaga imaan karaan qofku maaragtay anigaygaa kula hadlaya hadda maanan codaynin maxaa yeelay meeshii aan ka codayn lahaa waa gaari kari waa duruufaha shaqo ee igu xeeraa. marka arrimahaasaa sababayay sida dadka ku jiray ololahana sama ahayn badankooda dadkii kaadarka haystay. qof kasta oo soo baxay ololaha maaha macnaheedu inuu kaar haystay ama codeeyey. waayahay sidaan ogsoonahay shalato waxaa beesha caalamku oo hargeysa jooga la shirtay labada xisbi kulmiye iyo waddani waxay yidhaahdeen waxay sheegeen in dadka badan la xidhay dad badan goobihii ay codbixinta iyagu ay u dirsadeen aanay soo raacin sanduuqyadii. waxay kaloo sheegeen in dad badan la dhaawacay oo jeelka ay ku jiraan la xidhay oo saraakiisha iyo jarnaaladu ay xidhaan iyagoo ka tirsan kulmiye. arrintaa maxaad ka leedihiin idin haduu kusoo eedeeyey? kolleyba waan maqlayay laakiin waxaan kuu sheegayaa horta doorashada noocaa u dhacda yurub baad joogtaan ama maraykan baad joogtaan ma cabasho la-aato ma xidhxidh la-aato. waxa weeye qofku isagoo dee ucaadifadaysan ama ujibaysan xisbi ayuu dembi geli karaa. sharcigan qofka codeeyahay kama weyna. anigu gobolkan amnigiisa mas-uulka ka ahaa waxa weeye halkiis oo ka dhacay ma jiro. marka laga tago niman qoryo lagu qabtay oo 5 nin ah oo iyagoo hubaysan la qabtay oo xisbiga waddana ay sheegteen inay ka tirsanaayeen. markii dambena la sii daayey oo maaragtay aanu sii daynay markii da laga wada hadlay. qofka hadduu dee ama hubaysan yahay ama maaragtay dee fal ku jiro oo dembiga waa la xidhayaa. maxaa loo taabtay xisbi hebel buu yahay ma noqonayso. laakiin xisbiyada eedahoodu waad ogtihiin oo caalamka o dhan kujirtaa way iska badan tahay. khaasatan qofku markuu tabayo in codkaas lagaga guuleysan karo inuu xaalad abuur iyo wax badan sameeyo oo wax iska dhici karaa. laakiin waxaan ku leeyahay ilaahay mahadii waxa cabashooyinka yaran xataa hadday jiraan waa wax la eegayo. garsoor baa jira, cadaalad baa jirta, amnigaa jira kala sarreeya, korjoogayaal baa jira ajnabi ah. waxaasoo dhan waa wax iska sahlan oo la xallin karo aan waaweyneyn cabashooyinkaasi. marka guud ahaan waxaan leenahay tii ugu sahlanayd oo ugu hawyarayd bayn cabashooyinkaa la sheegay.
waayahay baryo dhaweto waxaa yimi Muuse Bixi gobolka Sanaag waagi ololaha wuxuu sii aaday dhinaca iyo hadaaftimo wuxuu isu bedelay janaalo badan oo qaar shaqadii uu ka saaray qaarna uu kor u dalacsiiyey maxay ahayd ujeedada dad badan waxay u garteen markuu aaday hadaaftimo inuu waxba kasoo fahmi waayo janaaladii deegaanka ka tirsanaa uu qaar ka xayuubiyey jagadii maxaa arrintaa ka jira waxa weeye sinow saraakiishaasaan ku jiray anigu kamid ahaa meelihii ay ka shaqeynaya laga bedelay ama hadda lacaan ama maaragtay shaqooyinkan loo dhiibo waxaan kaga jawaabaya arrinta anigu aragtidayda ama sida ay ahayd horta dee xukuumad baa jirtay iyadaana wax kala bedeli kartay oo madaxtooyada kasoo baxaya kala bedelku laakiin Muuse Bixi ma ahayn maaragtay ama wasiir ma ahayn wax kala bedeli kara oo gaashaandhigga haysta ama ma ahayn madaxtooyada muu joogin waxaa la isaga iilaya tegidiisana dee dawladoo dhan xukuumadda rag badan baa kala socday marka anigu ma qabo in bedelka iyagaas uu Muuse saameyn ku lahaa bidaad laakiin wafdigii ballaadnaa ee xukuumadda meesha ka socday markay arkeen oo u kuurgaleen qaabkii amni ama campainkii doorashada ka jirtay meesha ayay u muuqatay in isbedel la sameeyo waa suuragal in siday ujeedeen oo ay tahay wax u saxaa usoo ay u dhacday inay khaldantayna waa suuragal laakiin arrintaas dee xukuumaddii markaa jirtay ay meesha maraysa baa tallaabadaas qaaday waayahay sidaan ogsoonahay Muuse Bixi oo markaa u tartamaya jagada madaxweynenimo wuxuu sheegay isagoo markaa hanjabaad hawada u marinaya Puntland inay yaqaaniin awoowayaashood inay yaqaaniin maysan ahayn laftigiinu inaad tihiin beesha uu la hadlayo leeyahay awoowayaasha ayaa yaqaano oo dagaal halkaa ay hurinayo idinka markaad meelahaas oo kala joogtaan sida u aragtaan hadallada kulkulul oo Muuse Bixi uu ku tuurayo markaas uu la dalinayahay qabiil ahaan idinka mayn dawanaa intaas markaad dhegeysataan mase ka jawaabtaanid horta hadalka waa iska mergi hadalka waxaa la yidhahda waa mergi oo kaad waa meesha loo jeedo Muuse jawaabta hadalka uu jeediyey waxay jawaab u ahayd hadalkii kasoo yeedhay Garowe waana ogtahay nin doorashadii campaign ku jira Trump haddii hadaladii uu soo sheegay intii ku jiray doorashada hadda la akriyo wax weyn oo goldololooyina baa laga helaya hadal campaign baan anagu isaga arkaynay jawaab Garowe ugu jawaabayay baanu arkaynay laakiin madaxweyne hadduu guulaysto Muuse Bixi waa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo dhan oo aan kala hayn qabaa'il iyo maaragtay qoqob iyo kala qaybsanaan aan lahayn weeye laakiin jawaab munaasib ku ahayd dee daandaansigii horeba aanu jirin ee Garowe kasoo yeedhayay ayaanu arkayna arrintaa waayahay generaale adigu laftigaaga waxaa ka tirsanaan jirtay mar Puntland oo ahayd booliiska haysatay maxay tahay sababta markaa dhinaca Somaliland kusoo degargotay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay su-aashaas waxaa weeye anigu waa run 4 sano baan division ka ahaa division booliiska Sanaag Puntland ka ahaa waxaan in badan qiimeynayay horta sideedaba waxa weeye qabiil baan meel ku joogaa macno ma samayso laakiin qofku waa inuu horumarka dalkiisa iyo dadkiisa iyo maxaa u qabsoomi kara iyo yaa wax u qabanaya iyo maxaan ku dhaha system iyo dawladnimo yaa u ogol inuu qof ka fikro weeyaan waxaan kuu sheegaa booliiska aan xukumay gaadiid ma lahayn mushahar ma heli jirin saldhigyo ma lahayn wax oo wixii ribooda aan gudbiyaa meel igama gaari jirin anigu adeega aan ku shaqeeyo oo miisaaniyadda igu jiraa madaxweyne haddaanu iisoo ogolaan layma siin jirin yacni dadka amniga magaca amniga aan sito wax kama qaban kari jirin qofku meelaan ku xidho male garsoor male maxaan ku idhahdaa qofka dambiilaha budget lagu soo qabto iyo wax miisaan lagu jira male yacni qofku waa moral xumo iyo niyad tab unbaad ka qaadaysaa marka tolnimaan kugula joogaa waayahay weli bartamaha waxaynu kaga siinaa waraysigii aan la yeelanaynay generaal Axmed Siciid Gabaroor oo jooga magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo ayaanu telefoonka ku teegsanay khadka telefoonka generaale adigoo mahadsan su-aashii haddaynu dadka ugu soo celino su-aasha aan ku weydiinaya waxaad ahayd booliiska oo gobolka Sanaag oo dhan haysta ee Puntland maxaa kalifay inaad ku biirtid Somaliland markaan soo koobo walaal waxa weeye anigu waxaan wax ku qiimeeyey waxqabad iyo maamul wanaag
iyo dawladnimo iyo horumar baa wax ku qiimeeyey ee kuma qiimeyn qabiil iyo dhalasho ma garatay. puntland markaan ushaqeynayay 4 sanaan ka ah taliya qaybeed boliis. waxaan kuu sheegayaa inaanay lahayn gobolkaasi uunu lahayn saldhigyo puntland u dhisin, aanu lahayn maxaan ku idhaahdaa gaadiid lahayn, gaadhsiin lahayn, mushahar askartu helin, uu yahay magacuyaal uun maaragtay dee ku buuxa uun gobolka sanaag baa ciidan leh. wax oola wixii ribooda aan gudbiyaan meel aanay gaadhaynin. anigu xuquuqda taliyanimo ee aan ku shaqeeyo dastuuriga inaanay helaynin. marka waxa weeye de waa aniga kolley waa ii cunami weyday inaan maaragtay dee arti baan ahayo puntland baanu ka tirsannahay oo wada dhalanay ama majarteen baan wada dhalanay keliya inaan ku joogo puntland. waxaa intaa iisii dheeraa ragga wasiirada ah na matelayay gobolka matelayay dadku waa power sharing baa meesha lagu joogaa. ama xildhibaanada ahi waxay noqdeen dad iyaga laftooda marti ah ama ninku maslaxadiisa un ilaashado oo aan qadiyad dal iyo dad midna ka fekeraynin. baynama hadda aan kuu sheegay muddada gaaban ee somaliland joogay askariga aan xukumaa xaqiisu helaa, mushaharkiisu helaa, saldhigyaan ka dhisay gobolka intii aan joogay, degmooyin baan ka dhisay, guryihii maamulka degmooyinkaan ka dhisay, riboodkaygaan meel gaaro, feerka aan diraan jawaabtiisa helaa, askarigan xuquuqdiisa u dalba ama caafimaad u dalbaan helaa, system shaqaynaya akoonkooda bankiga akoon ku leeyihin ciidanku 27 26 akoonkaas mushaar kusoo dhacaa aanu saxeexaa in walba halkiisa ugu tagtaa. askariga marka uu xaqiisa helo baan waajibaadkii aan ku lahaana weydiin karaa ama u diri karaa. qiimeynta anigu aan sameeyey ee somaliland ugu wareegay ee hadda ugu shaqeeyo puntlandna uga tegay muhiimada aan ku saasa weeyaan aan go-aan ku qaato. marka maxaa la oran karaa ba hadda markii aad somaliland tagtay aad u qabatay dadkaas igu celi markii aad ka tagtay puntland oo somaliland hadda aad joogtid dhulkii iyo dadkii aad ka timi wax uga qabatay markaa maamulkaas? waa aniga kuu sheegaya waxaan ku yidhi askarteedii ayaa xuquuq heshay, dirayskooda 6 bilood bay u helaan, mushaharkooda 27 ay helaan, saldhigyaan ka dhisay, degmada xigmada saldhig baan ka dhisay, carmale waa ka dhisnay, meesha la yidhaahdo degmada xigmada gurigii maamulkaan u dhisnay, carmale waa ka dhisnay, meesha la yidhaahdo dabala xagare. dhulkaas oo dhan dhulna hadday proposalka ugu jirtaay oo laga dhisi doonaa. waxa weeye riboodka anigu ama qofka caafimaadkiisa askariga ah ama baahidiisa duruuftiisa kale ayaan si dawladnimaa uga jawaabi karaa. wax badan baanan u qabtay intaan hadda joogay gobolka xagga maaragtay ciidanka booliiska. waayahay generaal sidaynu ogsoonahay dadka meesha degan waa iska qabiil haddii ay diidaan wadani ay diidaan inay ay natiijada doorashada ay ku qanci waayaan maxaa markaa tala idii ah? walaal waxa weeye horta meeshaan dee qaran dhisan oo institutionskiisii leh oo kala dambeyn leh oo nidaam leh oo lawada ilaashanayo oo dastuur leh baa jira. marka waxa weeye go-aan dawladeed weeye qabiil umalayn maayo macquulna ilama ahayn qabiil dhami oo xisbiga kulmiyana ku jira maxaan ku idhahdaa wadanina ku jira ucidna ku jira in la yidhaahdo maaragtay dee haddii wadani heli waayo qabiil hebel baa dawladda mucaarada iyo caqli ilama aha. laakiin dawladda diyaar bay u tahay wax alla wixii shuruucda dalka u yaala ama dastuuriga ah ama xeerarka xeeroosaadada amniga iyo u yaala haddii ciddii ku xadgudubtaa waa waajib dastuuri ah in maaragtay dee la ilaaliyo oo amniga la sugo oo kala dambeynta la sugo oo dawladnimada la ilaashado. marka mana odhanayo mana tuhmayo inuu jiro qabiil hal xisbi ku urursan oo odhanayo qabiilka iyaga xisbigiisii baa waayey. waa laga yaabaa in dee majority ay iska jirjiraan, laakiin waxaad ogaan doontaa anigu sida aan filayo cidda laisleeyahay hadda way mucaaradi doontaa inay ugu hor hambaliyeyn doonto maxaan ku dhahaa xisbiga guulaysta hadduuba kulmiyo noqdo xataa. waayahay aada iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba umahadsan tahay generaal axmed siciidi gagaroor oo jooga gobolka sanaag magaala madaxda Ceergaabo. mar labaad iyo mar saddexaadba waa ku soo wici doonaa hadba wixii ku soo cusboonaada si aad dadkaaga ula wadaagtid. mar labaad iyo mar saddexaadna aad iyo aad ayaanu kugu mahad celinayna waqtigaa kaaliga aada noo soo hordo generaal. waad mahadsantihiin nolosha 6 asad suudi
yaasiin ducaale akhyaarta kale ay dhegeysanaysaa aad baan idinku mahad celinaya inaad ila soo xidhiidhaan oo igu martiqaadaan caawa maaragtay barnaamijka dhammaantiina waxaan idin leeyahay allah idin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله. 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 وعليكم السلام ورحمة الله.